khilaafku waa shar mar kastana waxbuu baabi'iyaa ee wax ma dhiso haddaba waxaan isweydiinay ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama khilaafka uu naga xarimay maadaama khilaafka uu keeno ummaddu inay burburto maadaama ilaahay uu nooga digay in ballanta oo laga baxo ilaa muslimiintu waxay ku ballansan yihiin midnimo iyo waxda ayay ku ballansan yihiin ballanta oo laga baxo khilaaf la abuuro oo ummadda qulubtooda la kala geeyo maadaama ay noo sheegtay diintu inay tahay khasaaro sidee bay diintu nooga warrantay khatarta ku jirta maxay tahay laakiin intaanan ka jawaabin su-aashaas waxaan isweydiinay mar kasta oo dadku ay ballamaan oo soomaaliya rajo ay yeelato oo dalkan uu dib u soo noolaado oo dhibaatadiina gaartay inaan ka kabanna aan bilowno maxaa khilaaf u bilowdaa muxuuse baarlamaanka soomaaliya dhexdiisa uga bilowdaa haddii khilaafku uu yahay khilaaf ay bilaabaan jamaaca mutamarida koox dalka ka soo horjeeda dowladnimadiisa oo mutamarida si loo xalliya ayay leedahay waxaa lagu xalliyaa islaamku wuxuu u yaqaanaa inay yihiin buqaad dad xadgudbayaal ah oo ku xadgudbaaya dowladnimadii iyo amniga markaa waa la qamciya waa laga hortagaa axkaam sharciya ayay leedahay laakiin haddii khilaafku uu yahay dadka loo dhiiba inay ummadda mideeyaan oo kitaabkii u maray inay ilaahay ugu dhaarteen dalka iyo dadka iyo diinta in ay mideeyaan ay isku haayaan hadday ayagu ay bilaabaan khilaafka ayaga oo aasaas uu yahay khilaafkaas istuhtuhum iyo kala shaki iyo cuqdado ama masaalix qof walba uu si gaar u rabo tii dalka iyo dadka iyo diinta inta meel la iska dhigay khilaafka noocaas oo kale taa muxuu noqonayaa diintuse maxay ka tiri marka hore khilaafkaas ilaahay iyo rasuulkiisa waxay ku tilmaameen inuu yahay ballan ilaahay looga baxay iyo ummadda ballantii lala galoo laga baxay macno kaluu leeyahay male waa ballan ilaahay lala galay leannu ilaahay subxaanahu wa tacaala ballantuu muslimiinta la galay waxaa weeye qaala tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ballantaasaa naga dhexaysa allah inaga xarigga ilaahay wada qabsada ummadiina ummadda midaaya hana kala tegina walaa tafaraquu waxaa kaloo ilaahay yidhi ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican lasta minhum fii shay nabigaa la yidhi kuwa ummaddooda kala geeyey magaca fahamka diinka magaca fahamka dastuurka magaca mabaadi'da ummadda ku kala geeyey oo dalku uu leeyahay adiga waxba idinkama dhexeeyaan waa acdaa waa cadowga ummadda leannahu xadaaraadka ummadu waxay ku dhismaan wada jir waxay ku dhismaan dowladnimo waxay ku dhismaan xeer iyo nidaam inuu taliyo waxay ku dhismaan danta guud in laga hormariyo danaha gaarka ah marka haddii waxaasoo dhan inta meel la iska dhigay khilaaf iyo isqabqabsi iyo cuqdado iyo kala takatulaad iyo kooxo kooxo maanta oo dhan isku mashquulsan aaw ummaddiyaa u shaqaynaayo aawa kitaabka ilahi oo la galay aawa dowladnimadii aawa sharafkii waxaa la yaab leh in khilaafkan uu ku soo aaday ayadoo sanad huduu iyo deganaansho lagu jiray siyaasadeed ayadoo qiyaadaadkii dalku ay dadaal badan u galeen dalkan meesha u yaal in laga qaado ayadoo madaxweynihii uu safaro taariikhiya ku tegay dhammaan walaayaadka soomaaliya weliba ay ugu sii caansaneed safarkii dheeraa ee dhulka uu maray 1 kilomitir ka badan ee ummadda soomaaliyeed awal marra fi taariikhi soomaaliya sidaad ogeedeen isugu soo baxday walaayada puntland iyo galmudug oo taariikhda weligeed aan ka baxayn waxay muujiyeen dadka soomaaliyeed siday ugu yani ooma yihiin dowladnimo waxay muujiyeen qiyaadaadka soomaaliyeed ee maamul goboleedyada jooga oo dhan ayagoo bedela nahjigoodii hore oo isqabqabsiga iyaga dowladda iyagoo aad ugu mahadsan in ay dowladnimadii ay si wanaagsan yani ula shaqeeyaan oo ay muujiyaan sharafka iyo soo noqoshada yani karaamada ummadda Soomaaliyeed inay ku jirto in dowlad Soomaaliyeed oo qawi ay dhisanto oo qiimo leh aad bay ugu mahadsan yihiin khilaafkan wuxuu ku soo aadayaa ayadoo Soomaaliya xagga dastuurka macraka dastuuriya ay u gashay xuquuqdeeda dalka inay soo dhaxsato waad ogtihiin baarlamaanka Soomaaliya laba aqal ka kooban labada aqal waxay isku raaceen in siyaadada iyo madax banaanida Soomaaliya iyo sharafta Soomaaliyeed duruuf kasta aan ku jirno inay tahay mid ilaalsan oo la ilaalinayo oo lagu maxadgudbaana qarar taariikhi ka qaateen wax la ilaabi karo ma aha waxay ku soo aaday khilaafkaanu ayadoo markii ugu horeysay xukuumaddii Soomaaliya beeshii caalamku ay ku amaanayso horumar siyaasadeed iyo dhaqaale in la gaaray oo shafaafiye fiican ay socoto oo dalku hore u dhaqaaqay ayagood ogtahay inay markhaati kacaan inay aad u dhib badan tahay dadkaas qoomkaas inay wanaag kuu qiraan ay aad u adag tahay laakiin waa ka fursan waayeen waxbay ictiraafeen markii ugu horeysay wuxuu ku soo aadayaa
ayadoo madaxweynuhu u istaagay inuu dib u habeeyo ciidamadii Soomaaliya oo ogtiin in laf dhabarka dalkan jiritaankiisa in malafaadkii faraha badnaayo isku yaacsanaa dib loo nidaamiyo oo loo shaandheeyo oo khubradii saraakiishii waaweyneeda ciidanka dhistay meel kasta joogaan loo yeero oo la weydiiyo talo oo dib ciidanka loo nidaamiyo si ay u qaataan muhiimadooda wadaniga ah oo dalkan gacanta ay ugu soo dhigaan cadowga qasaayo oo dhibaatada ka wada oo dhiigga dadka baneystay oo noo nugleeyay dhammaan dadka danaha gaarka dalkan kale inay dalkan si fudud ay uga daneystaan oo kalluumaystaan in malafkooda la soo xiro iyadoo la isu diyaariyey ayadoo lagu guuleystay siyaasadda arrimaha dibadda oo adduunka dawladihii caalamka oo dhan dawladda Soomaaliya martiqaade u dalbayaan ayaguna inay booqdaan madaxweynaha adduunka dawladda ugu waaweyn ay aad u jecel yihiin waddankan inay yimaadeen oo dalkii loo soo wada jeestay inaha lagu hayo annagoo og inaynu ku dhexlaal mandiqa gubanaysa oo caalamka carabi wax ka dhacay aan ognahay oo geeska Afrika laftiisa wax badan ay ka jiraan annagoo 27 sano ka bacdi dib u soo kabanayna in ay noqoto xaliimo sida carabtu ay tiri xaliimo in xaliimo waa un xaliimadeedii wax iska bedela ma jiraan magaca dadka xaliimo xambaarsan raalaha aadaano loolama jeedo ayaga laakiin waa matal carbeed oo qadiima xaliimo waa xaliimo isma bedesho inaan marka meeshii aan ku soo dhici jirnay ku soo dhacno oo maanta baarlamaankeen u kala fadhiyo golaha shuruuda raalaha aadaano golaha shacabkan ka wadaa si macna la'aana inay isku mashquulsan yihiin ayagii inta kitaabka ilaahay meel iska dhigeen inta dhaarta meel iska dhigeen danta dalka iyo dadka iyo diinta xagee ku dambaysay ma in la iskhilaafo oo la isqabqabsado oo mooshin la iska keeno oo la isugu caga duuleeyo idinkaan idinka xaynana idinkaan idinka qaadana miyay ku soo danta dalka dadka waa nasiib darro wey marka walaalayaal ilaahay aan ka baqno ilaahay laga baqo ilaahay aan ka baqno balan dhigaysana wax yar marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii uu ka yiri dadka ballamaha ka baxo noocaas oo kale taa dadka inta danihii ummadda ay ugu dhaarteen kitaabka meel iska dhigay ayagu inay isqabqabsadaan isu muuqdaan kaliya isfiirsadaan ama dana gaara kursi mid ku fadhiya laga tooro in mid qof aan kursi haysan kursi raasado in xoogoo dana gaara la helo in mid cabsanaayo isle hebel hadda meesha ka toorin adiga jaaniska ku dhaafay adiga inuu dalka uu azma geliyo khilaafaadka noocaas oo kale taan soo marnay oo aan ku soo daalnay oo aan ku 15 sano jirsanay oo wada garanayna meeshana dhigay oo soo bilowday 2000 soo bilowday madaxweyne kasta iyo ra'iisul wasaare kasta isku jabadaynayeen haddana wada baxayeen mar kasta saas wada baxayeen in maanta baarlamaankuna mar kasta ay weelka lagu adeegto meesha lagu dagaalamo meesha ummadda lagu kala qaybiyo in dib loo bilaabo haddana khilaafka noocaas oo kale taa waa nasiib darro oo inteeda la eg waayo waa mas'uuliyad darro waa alla ka cabsi la'aan waa ballanti ilaahay oo laga baxay dadkaas maxay leeyihiin marka alla dhageyso subhanahu wa ta'ala alla wuxuu leeyahay jalla jalaaluhu dadka inta ballan la gala ilaahay subhanahu wa ta'ala ballanta uga baxa tilmaamaha ay leeyihiin lix tilmaamood ku soo koobayna tilmaanta koobaad waxa waaye inay malcuuniin yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa qalbigooduna uu qalalan yahay malcuunku muxuu yahay alladii laysa fi qalbi rahma wala yanalu rahmat Allah ta'ala laba shay ayaa malcuunka lagu cuquubeeyaa in qalbigiisa naxariista laga saaro asaga oo qaasil qalbi uu yahay naxariista ilaahayna loo diido oo weligiis aan loo naxariisan labadii baa loo kulansiiyaa dadka noocaas oo kale taa oo danaha gaarka danaha ummadda ka hormariya قال تعالى الله وحوري فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم برنتي بريين بلنتي إلهي لقلين أما إيجا دحضة بلنتي تيل إيا بلنتي أمضة لقلين أي بريين أيان لعنة شوقة تورني وجعلنا قلوبهم قاسية قلوب توضنا مد قللنا كدقني قللا وأن مرنا قويين إلا ملعونين ويس يقول قلبكم سوقية يحرفون الكلمة عن مواضعه إريدي أي كلمة دي ما له لو قلت لك لي كل حين يعني سيدنا هذا وقاران يحرفون الكلمة وحول الباء تحريف كاس علماء وحي كتل مامان أما إن آياتها إلهي اللي بدل نسير هربا إسرائيل يسميين أما بالله ما ذل قال إن وحلو قدر أما لغنو سغاميو سعادي قال له بريو أنت بقى فسره أنت بويد عذا إذا ده نسي أسئلة سنايو إن معركة اللوائح الإدارية ساسو أقريها قضب كان سانو أقريها سيل يسدلوا ولا سبابيو ومد تاجر ما تبي تاجر معنى الآن أين مقاصد الأمة مقاصد أوضح قضب كان يركب يا أمضان لو صدري أو كتاب كلام لو صدري خلق كون كان لو أبوري إن الأمر ما أنت معنى الآن وحيث سنيسا إن يعني نوايات أذو جريين حيث سنيسا نشاعر عربدا سوحوري لعمرك ما ضاعت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق ولقيت مد عنده يريد ضل إنه دتكي سعرير يكون نقضه لكن أخلاق ذا هي قلوب تدتك يا عرير وكجرابه هل كجرن وأخلاق ذا هي قلوب تجرن مركل لبضاس المامود قسوة القلب إيه اللعنة ده هرت فرق يكون قادنا يعني
laba tilmaamood kala qabsay idana oo ilaahay quraanka noogu sheegay waa inay mufsidiin yihiin khasaaran ay ku dambeynayaan weligiis in mu'amaro sameeyay waxba kama faa'iidan ummad uu ku dhibaayo oo dal uu ku burburinayo xataa danihiisa gaarka ilaahay baa barakada ka qaaday hadduu gaarana ku nacfin maayo qaala tacaala aladiina yanquduuna cahda allahi min bacdi miithaaqihi kuwa burinaya ballanta ilaahay markay adkeeyeen kabacdi ballantaas wayaqdacuuna maa amara allahu bihi an yusal goynaya wixii ilaahay uu faray in la xiriiriyo ila ummadda in la isku haayo ayaa ilaahay faray واعتصموا بحبل الله جميعا ويجرجرين أمضي كلا قيبنا ناس قلت كل فدايان ويفسدون في الأرض الأولى فسادنا آية فساد كان لقموه ذكي أخلاق ذاك ليه وحلا قضى بربرك يدمرك كلا تجا يصنعك عداواتك أمضي نحن آيان إلا إيجا أصابه أولئك هم الخاسرون كواس واكو خساري في الدنيا والآخرة والمفسدين هذنا خاسرين لبدا تلمامون إلهي آدم ونحن لما تلمامون كلا هذنا قاضوا لما تلمامون أو خلافك يكون كان آيان وحوي إني دلك ونقول ليان أجنبي أو لا وريق دلك مركز دنبه إلا إيجا الباب كأفري عدوجي إيه إن أود يرجع دلك أي باب إيان قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إلهي رسول كيس أطيعه أو هيسكهور إيماننا أو مركز أتفشل كل عدان دلك المسؤول كتير أتفشلتين أودي وتذهب ريحكم أودي أي باب هذا دلك يو فشل يقول هذا إيه دلك يو أود الآن لا دقو أو بيلاقون نقد عدو إني قبصدان لبضع سنة أنا قبصو لحد مريسا واحد قصو قبينيسا أو دقن كود كل مانا يدك سيجا إلهي نو نوشيك سبحانه وتعالى وحول إمام لإرادة محمد بن كعب القرظي مفسر مفسرين تو وين كمذا رحمه الله تعالى إمام وينها وحول ردتك مؤامرات كأي خيانة إيه بلنتول لقبح إيه أمضوا اللي يسكتوا لك الشقية وحال يراهو يري أصحاب المكر والبغي ونقض أو نكث العهود سد حسب ما مضى إلهي كتل المام تذكر مكرك أي خياناتك عنكو بغي أي حد قذبك يقف إني دبرك الجويان كلي دبرك جران فيش أي جران كلي خشقية أن شغلك لا أغانين بلا ماذا نكبحهم بلان لهين أو بلا ماذا آخر دن هذا جارك كلي سيدي حدنت اللي كلي آخريا أو كياش وجدت مسالح هذا كلي ذن كلي دل كلي الملك تذكر سيجا وحوري عليهم لا لهم أيجا أي كل على مصيبة أي مريجا يعني ولود كمان فائدان ويد مركزهم سدح آيات سد لي سد اللي رأي ما هو حيس آيات قرآن قال له قال تعالى الله وحوري يا أيها الناس بغيك يحد قذبك كوا سمينا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أو إلهي كوا حد قذبك سمايو حد قذبك ظلمك يا بغيكو نفتي ندوش ضمبو هذا عدك لجالس ميسين إذنكم باكو بحيسين آياتك الإلهي مكرك من قال الله وحوري ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله مكرك إيه خياناتك إيه شرقالة كوا مليجا ما يعني ما نبان إلا نفترض ما هنا أهل كيس أبو مكرك بابيا عدك له مجالسي تذكر ليته ودبايان لكن دبكاسو السوق مسلحته وكلا يكجاري مايو دبكنا الدنيا آخر أسوق صار على التمامي عن شغل اللحدة هاي أي سوقية تنسدحان وحوي بلنت اللي قبحي فمن نكث فإنما ينكث على نفسه وفرس قف كي بلن بريه نفتيس أبو دوشة يكون بريه أسوق ما يدبيسا من حجر العسقلاني وحول ليه صاحب الألفات الكثيرة فتح الباري وحول يري تتكبر لماذا بحياء يعني محمد بن كعب القرظي أيوة فقسين إمامك وحول يري عزة أي رادنا أيان إلهي ذل أي أوجب بدلا عزة رادنا أيان مركب بلنت كبح أيان عزة يهرمر يعني منصب جاران يتبوء مقاعد كبيرة يعني جاران إلهي ذل بأوجب بدلا لقي سمرك وحصاقاتي فرمكة ممكن مكدة أنا قريش هاي أقوى قبيلة وإدارة في الجزيرة العربية هاي ده النبي صحابتي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وكسوه هاجرين قال له لا وايد نمك حوق بدناي بلن أي بري النبي أنت بلن قال الحديبية أي كبحين وحوق بحين خزاعة إن من اللي يراد إحدى الجوجي أي واحد لقوا بلن من النبي حليف الله إني سنتابا كويك وحد بين اللاين مركزي بلنتي بريين بلنتي كبحين وحكى له النبي قلت تمنك سنوش يسكول جري سجاد كمذا يقال سقف جري إنه أنت دقاقه أو كل دقوا قبته أو أنت لقبته يقول أدلة حوالينا اللي قالوا وريقو دلنا يكون أولادان كو إسلامي الإسلام كبير قال لنا لكن عزدي هي استيد دولة نمذو هكذا كواي وهكذا وسيدا سول لي قف كستو بلند ومدة أنت لقى شدناها عام كاي ومدة دنا هذا قارك كور مريسة إيه ومدة بلند أوقف بحضر إيه دلك خذ لهم كسم ماشي دلك يجوكتو إلى بلتيزة كبحضر ولا ليال وحواجب إلهي أنا كبغنو إن أنت سو أيضا أحاديث أقوال علماء أئمة إن قلبي جن قلي ويسو إن ما أنت إسكال لنا إن وحى أن ودنا أنجوجنا دل كان هجام بولي هاي خلافك برلمانك وحلا لو قلت لك إنه الشورى هذا لبديس قلبه أو أي مدحوينها دلك هجامية هي حكومة السوق ولي هاي وشغلة قدر صدي ست تفاصيل أنا شغلة يومي جاي قبطان
in ay tala siiyaan mas-uuliyaadka loo diray ee ummaddu ay ka sugaysaan ay qabtaan looguma talagelin inay meeshaan yarta ahoo qolkaa yaroo xukuumadda iyo shaqooyinka dadka loo diray in isha lagu wada qabtee maanta o dhan laysku mashquulay in xukuumad la riday xukuumad la keeno ma loogu talagelin ilaahayna ma ka aqbalayo subxaana wa tacaala ummaddaanuna ma yeelayso wax maslaxana kuma jiraan ilaahay intay ka baqaan waxaa waajib ku ah waajibaadka saaran nuwaabtii baarlamaanku waa fadhiyaan inta kalena waa maqli doonaan waajibaadka dalkan ka saaran waxa waaye kow inay fasaadka dalkan ka jira iyo fargelinta faraha badan oo ka jira ay ka qabtaan ummadda oo dalkan ay islaamnimadiisii iyo soomaalinimadiisi ku sugaan waxaa waajib ku ah argagixisada dalamada ah tuulooyinka iyo degmooyinka ay ka soo baxeen ummadda ku laynaya dhiigga ka daadinaya xoolaha baad uga qaadanaya inay inta tagaan ay ka xoreeyaan iyagoo dowladda dhex la kaashanaya waxaa waajib ku ah inay shuruucdooda iyo andimada dalka u yaalla inay wax ka qabtaan oy hagaajiyaan waxaa waajib ku ah inay la xisaabtamaan xukuumadda shaqaynaysa oo wixii qaladaday leedahay ay hor dhigaan waajib waayo ayadoo aan hadaf laga dhiganayn shaksi iyo kooxe qof walba wasiir walba shaqada loo diray baarlamaanku xaq buu le inuu la xisaabtamo guddiyada ku shaqale ay daba kacaan ee ribood soo dhigaan ee madaxweynaha ribood u geeyaan guddoonka u geeyaan ummadda u sheegaan meediya la wadaagaan wax la ilaa hadda macraka dastuuriya qaanuuniyaha jirta waa lays eryanaya ummaddana waxay ka ogtaa male limaada wax la isku haysta wax caama inay yihiin ayaa shaki badan nooga jira marka ilaahay intaan ka baqno dalkaani dadkaani aanu naxno diinta ilaahay aanu naxno dalka xaakim ayuu leeyahay walaayada caamka ee dalka waxaa iska leh hal shaksi oo la yidhaha maxamed cabdullaahi maxamed ninkaasaa madaxweynaha dalka ah inta kaleetana waa garbihiisi hadday baarlamaan yihiin hadday xukuumad yihiin istaraatiijiyada dalka lagu badbaadinayo asagaa laga rabaa inuu soo bandhigo inuu bannaanka keeno waxa la isku haystan oo kaga rnaqaa laga rabaa waxaa asal ah dadku inay wada socdaan oo golayaashu ay siyaasad midaysan oo asaga oo oday u yahay in lagu wada shaqeeya asal ah haddii la waayo waxaa la rabaa wixii lagu ballamayo qoraa in lagu kala baxo si cadaalada asaguna uu dusha ka ilaaliyo asagoo u dhexeeya ummadda oo aan dhinac jirin oo dhammaan dadka oo dhan u garnaqayo ilaa waa mas-uulka qarankeeda inta kalena waxaa waajib ku inay adeecdo qaala tacaala ilahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum